Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta soo dhawaada. Waxaa fooda nagu soo haya sanadka 2025 oo ah sanad altcoin season ah. Sidaas darteed waxaa idin haya laba coin oo ka mid ah altcoiniska qiimahoodana aad uu u jaban yahay waqtigan la joogo. Haddii aad maalgashatidna lacag fiican ay ka faa'iidi kartid sanadka fooda nagu soo haya ee 2025. Marka si labadaas coin ay isula aragno waxaa tegaynaa mid ka mid ah exchange-yada laga maalgashto lacagta kriptada oo la dhaho Binance. Marka Binance saan usoo galno qaybta searching-ka waxaa ku qoranaa magacyadooda. Midka koowaad waxaa la dhahaa Algo. Markuu saan kugu soo baxan asaga kusii dhufanaysaa. Hadda saa aragna Algo wuxuu sameynayaa kor u kac. Qiimihiisana waa 0.3. Haddii marka hoos ay isula daadegno all time high-giisa ama meesha ugu sareysa uu hore u gaaro waa $3 ama $3. Si aan ogaano marka qiimaha ku habboon ee lagu maalgashan karo waa bixina waxaa tegaynaa calculator-ka. Tusaale ahaan waxaa rabnaa coin-kan inaan ka gadano 1000 xabo. Marka 1000kaas xabo waxaa ku dhufsanaynaa qiimaha hadda uu joogo oo ah 0.3. marka waxaa noo soo baxday lacag $300 ah. $300 marka haddii hadda aan ku maalgashano markuu $3 gaaro ka waran marka $3 markuu gaaro waxaa noqon marka 1000 lagu dhuftay $3 uu gaaray $3000 ay noqonaysaa. Marka waa coin aad iyo aad looga faa'iidi karo oo hadda $300 haddii aad ku maalgashatid sanadka soo socdo kale $1000 aad ka sameyn kartid. Marka waxaa ku noqonaynaa Binance-ga. Coin-kan waa aragne. Coin-ka labaad u gudbeynaa. Waa kana asna coin-ka labaad waxaa la dhahaa Gala. Marka Galahan soo galno aslaftirkiisa wuxuu sameynayaa kor u kac saa aragno. Qiimihiisana waa 0.03. hoos markaa isula daadegno all time high-giisa ama meesha ugu sareysa uu gaarana waa 0.8 ama $0.8 waa lacag $1 ku dhow uu gaare sanadka soo socda maadaama altcoin season uu yahayne wuu dhaafi karaa halkaas oo ilaa $1 iyo jajab uu gaari karaa ilaa $2. marka asna waa fiirinaynaa haddii aan 1000 xabo ka qabsano kale qarash intee la ego nooga kacayo maxaana ka faa'iidi karnaa. marka hadda waxaa tegaynaa asna calculator-ka. waxaa ku qoranaa 0.03 times 1000 ama $0.3 waxaa ku dhufsana 1000 waa $30. marka shaygan hadda 0.03 ga maraya ama $0.3 maraya hadda haddii $30 aan ku maalgashano oo 1000 coin aan ka qabsano markuu $1 imaado 1000 xabo oo min $1 waa $1000. markaasna coin-kan aad ayaa looga faa'iidi karaa. labadaas coin jeclaada marka maanta inaan idinla wadaago. waana coinise aad iyo aad u qiimo badan lacag fiican laga sameyn karo sanadka soo socdo. idinkana ka faa'iideysta waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.